haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali daaja waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal aadkeedaba ereybixinta aad maqashaani wax kale ma ahee waa magac bixin waa shay bulshada soo saartay u leh magacay ula baxday kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo ummaduhu ay ku wada dhaqmaan ama waa fikrad cilanaada oo aan muuqan asii la wada yaqaan lehna magaca bulshooyinka faca weyn qaarkood ay waayo hore u bixiyeen macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay ula baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan iyo qaar aan u baahnayne inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horraysay magacii loo bixiyey sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar waxaa haddaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca erebixin dhallinyarada warbaahinta qaarkood ay si nintooxsi ah u abuuraan iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meheradda yihiin waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuqbaahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka taasina waa ka badbadis maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq keliya kuma saabsanee codna waa leeyahay oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysana wararka iyo faallooyinka uu tabinayo waa marka labaada ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan ummad walibana ay sidiisa u qaadato kadib markay inta waxyar ka beddesho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeedu oggolaan karo dhinaca kalena ereybixinta sideedaba waxaa habboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato dabadeedna ay qoraal ahaan bulshada ugu dhex faafiso dulucdu waxay tahay ereybixintu nintooxsi kuma gasho haddaan soo koobana ereyada telefoon telefishan raadiye dayuurad markab iyo kuwa lamidka ahi inkastoo asal ahaan ay afafka qalaad ka soo jeedaan haddana uma baahna in hadda magac soomaali loo doondoono maxaa yeelay sidooda ayay bulsho weyntu u garanaysaa oo u wada qaayiibtay halna ha la ogaado ma jiro af laga ilaalin karo afafka kale saameyntooda idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood ayaa beri dhoweyd waxay telefoonka ku wareysatay dakhtar soomaaliyeed oo aqoon gaara u leh cudurrada faafa iyo sababaha loo aaneeyo waxaa wax laga weydiiyey intii ay maalintaas maraysay tirada cudurka COVID-19 uu ku dilay gobolka lombardiya ee waqooyiga dalka talyaaniga intii haddaba aanu jawaabin ayuu weliyihii wuxuu su-aashiisii daba dhigay waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftaye bal ka waran markaas buu takhtarkii inta cabbaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gebagabeeyey waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay xagga afka markii laga eego waa jawaab aan hagaagsanayn laaxin baa ku jira sababtuna waxay tahay waa marka koowaade waxaa la rajeeyaa wax wanaagsan oo qof ama kooxi ay filanayso amaba ay jeclaan lahayd in la kulansiiyo kolka abaar lagu jiro waxaa la rajeeyaa roob iyo aaran haddii la xanuunsan yahay waxaa la rajeeyaa badqab iyo caafimaad kolka sabool la yahayna waxaa la rajeeyaa hodantooyo iyo haqabeel waa marka labaade rajadu sideedaba had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax timaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay
ama muddadii uu socday ay dhammaatay. sidaa daraaddeed waxaa takhtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo waxaan u malaynayaa ama waxaan qabaa ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka lombardiya cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay. maxaa yeelay ereyadii ku toosnaa inuu hadheeri waayey ha joogtee ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato. dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan. waa tahay haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran dhaafay, siday u badan tahay reer miyiga soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa 2 jeer. waa berigii intaan ooda laga rogin ee aan la soofin waa la maalaa. fiidkii markii moorooyinka lagu soo xereeyana waa la maalaa. 2 jeerna tu waliba waa hal caana maal. waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo 4 caana maal afkiisa oomati ma saabin. marka sidaas laleeyahayna waxaa looga jeedaa 2 maalmood biyo iyo baatoonii kama degin xanuunka haya awgiis. aan kolka dulucda hoos ugu daadegee dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood shir ay qabsadeen oo 4 maalmood socday. weriye soomaaliyeed oo idaacadaha FM-ta wax ku tabiya midood ka soo warramaya ayaa kulankii xidhitaanka ka sheekeeyey. dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gabagabeeyey shirkaasoo meel heblo lagu qabtay wuxuu socday 4 caana maal. hase ahaatee go'aamadii inay ka soo baxaan laga filaayey kama ay soo bixin. dhabtii haddii hadalkaa la raaco wuxuu weriyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday 2 maalmood oo keliya, inkastoo ay isaga la ahayd in dhagaystayaashiisa uu 4 u sheegay. maxaa yeelay 4 caana maal waa 2 maalmoode 4 ma aha. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.